siyaasi Cabdiqani Ismaaciil Mire oo ka tirsan golaha dhexe xisbiga wadani oo usbuuc ka hor iska casilay xilkii iyo xubinnimadii uu xisbiga wadani ka hayay ayaa maanta kulan uu warbaahinta ugu yeeray xarunta ololaha xisbiga wadani ee Ramad Hotel ee gudaha magaalada Burco ku shaaciyay in uu dib ugu soo laabtay xisbigiisii wadani isagoo warbaahinta u sheegay in la dhameeyay khilaafkii soo kala dhexgalay isaga iyo mas'uuliyiinta xisbiga. wuxuu daaran yahay kulankeena ma runtii aan halkan ka sheegayaa anigoo kamid ahaa xisbiga wadani golihiisa dhexe maalin dhaweedna runtii istaqaalo dhiibay markaan runtii eegay rogrogay la tashaday waxa weeye runtii ehelkay iyo waxa weeye runtii de xurgufiyada oo soo dhexgalashay awadeed tiina runtii aanu dhamaysanay suldaanka beesha waxa weeye suldaanka garabkayga fadhiya iyo dhamaan waxa weeye bulshadeen ka soo jeeday markaan arkay in waxa weeye aan istaba qabtay runtii go'aansaday inaan waxa weeye xisbigii hore aan ku jiray ee wadani inaan ku sii jiro oo aan la shaqeeyo waxaan shaaciyay oo aan sheegay golaha dhexe wadani aan ka baxay oo runtii meel aan ku biiray wali ma jirin laakiin waxa weeye waxaan de runtii aan sheegay in xisbiga wadani waxa weeye golihiisa dhexe ka soo baxay wali aan meel ku biirin marka taa aweed arkay waxaan jeclaystay waxa weeye qolada laftooda waxa weeye wadani deegaanada quusan waxa weeye dad waxa weeye waxaan xubin muhiim ah saa wali way daba socdeen oo inta wali la hadlayay oo inta waxa weeye runtii waxa la waxa weeye xisbigaaga ka fogaana ka dheeraan saa wali marka kulmiyana waxa weeye runtii de rag kamid ah waxa weeye kulmiya kamid ah waa la kulmay laakiin waxa weeye runtii de go'aan adag oo meel wada dhiganay ma jirin laakiin kulan de aan la kulmay wuu jiray xisbina kuma biirin marka de waxa weeye xisbiga kulmiya kuma biirin saa aweed waxaan jeclaystay inaan xisbigayga wadani kamid ahaado oo waxay ku sii jiro la shaqeeyo. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo ku dheeraaday in ay ku soo guuleysteen soo celinta siyaasigan kadib markii xisbiga talada haya ee kulmiye u gacan haadiyay mas'uulkan. awalan waxaan soo dhaweynayaa Cabdiqani Ismaaciil Mire oo hore xisbiga istiqaal uga dhiibtay kulmiyana runtii wada hadal la furay haddana ka soo noqday oo xisbigiisii ku soo biiray xisbigiisii hore uu ahaa ku soo biiray waa soo dhaweynayaa anigu waxaan rabaa insha Allah tacaala soo dhaweynta kadib inaan kelmad ku daro kelmadda aan ku daraya waxa weeye waxaan ogsoonahay maan ka dharagsanahay xisbigan talada haya iyo xukuumaddiisaba dadka waxay u sheegaan inay isbedel keenayaan oo runtii ay keenayaan waxay maanta ku sugan yihiin wax ka duwan laakiin shacabka iyo ummadda reer Soomaaliland waxaan u cadeynaa u sheegaynaa xisbiga kulmiye isbedel keeni maayo oo waxa weeyaan waxaan isbedel ku keenay kulmiye waa la tijaabiyay isaga iyo xukuumaddiisaba waa la arkay wax runtii maanta kulmiye uu hayaana ma jirto wuxuu soo siyaadinayaana runtii ma jirto xisbiga wadani waa xisbi runtii ku dhisan cadaalad iyo sinaan waa xisbi reer Soomaaliland oo dhan ay ka wada muuqdaan waa xisbi rajada maanta Soomaaliland gacantiisa ay ku jirto ilaahayna subxaanahu wa ta'ala aan ka rajaynaa normeeyo kulmiye waxay naga filan aragtidiisa sida ay maanta mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye isku weerarayaan oo wax iskaga sheegayaan inaanay waxba maanta oolin xukuumadda iyo xisbiga kulmiye taasay inoo cadeynaysa tacadigeedu waa farabatay ظلميgeedu waa farabatay dhul iibsigeedu waa farabatay mashaakilkeedii muxuu noqday mid had walba taagan maantana wax kale ma hayaan ay ku ooleeyaan aan ahayn inay dadka u ballan qaadaan waxaan jirin oo aan joogin kulmiye haddii ummadda wuxuu qaban lahaa hore wuxuu qaban lahaa haddii isbedel keena hore isbedel u keen lahaa. gabagabadii gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin ayaa dhaliilo culus u soo jeediyay xisbiga kulmiye oo uu ku sheegay inay caado ka dhigteen in siyaasiyiinta ay been ku soo xero gashadaan xubin qaali ah oo ka tirsanaan jirtay markii hore xisbiga wadani laakiin se kulmiye qalday oo been u sheegay beentii lagu yaqaanay kulmiye inay de ku khaldaan shacabka ku qaldeen kadibna markuu is ogaaday ama ogaaday waxa loo sheegay inaan ahayn waxba ka jiraan in uu dub u miido dowsaday maskaxdiisii iyo maankiisii kadibna la noqotay inuu dub ugu biiro xisbigiisii qaran ee wadani maanta sheekada halkan ku haynaa ama hawshan halkan ku haynaa waa hadalka waxba ku sii dheeraan maayo
kulmiye bulshada ayaa ka dharagsan barnaamijyadiisa inaanay waxba ka rumoobin ama in hadiya jeeralaanay waxba ka jirin waa Maxbuub Xuseen shabakada caalamiga ee Dalmar News gudaha magaalada Burco.